الله وبركاته. كسو دوادا جانل كانا كوبcinta garaadka carruurta walaashii Raxmo Xuseen maanta waxaan u hayaa fiidiyoyaashii hore fiidiyo ka duwan maadaama aan video soo waday 4 sano ku dhawaad waxaan rajeynayaa inaad qalin jabisaan oo waxal barataan ma sha Allah. maanta waxaan u hayaa intaanan baranin tarbiyada carruurta wax qalalaadka iga dhici jiray baan rabaa inaan idin sharaxo sida idinkana aad ugu baratiin iyo sida u sixi lahaadaan ma waayo maadaama aan mar walba aan ka hadlo in si carruurta loo tarbiyana wixii qalad ahna waxaan ugu sheegayaa gabar kale walaashay inuu saas ku dhacdo mar walba insha Allah qaladkayga wax ka barto ugu koowaad oo iga dhacay waxay ahayd cunugii xafaayadiisa goorma ka bedelaa goorma caano siinaa maxay ahayd asna wuxuu igu noqday ruux diiday caani marka qalad aad iyo aad ugu walwala jiray mar walba wax si mar kasta wax si asna caati oo ka batay heer waxaan gaaray inaan dhakhtar geeyo aan cunugeysan waaye uu caateysan yahay maxaan ku sameeyaa dhaqaatiirkan iyo miisaamaan dhahan cunuga miisaankiisu iska fiican laakiin marka aragtid waa caato laakiin miisaankii looga talagalay waa okay marka aad ugu walwala jiro waxaan qaada hadii dadka ku soo salaamaan wuxuu ku dhahan cunugaada caato badan aadnigana tabarti iyo wax kasta iga dhamaatay saa wax mar walba u siina marka waxaa jira walaalahayga marka waxaa idinka rabaa in waxaa jira aabab badan jiro sida hadda aabka camal halka idinka muuqdo hadda noona yar ahaysatid uu ku caawinaa maxaa ku caawinaya waqtigan xafaayada ka bedel waqtigan caana si marka aniga hadii hadda isku baraash gargaray lahayn waayo wuxuu ii caawinaa laakiin aniga waxda sina ta ka bedela mashquul iyo wareer maskaxdina waa iska wareerin marka waxna ma ii tirino wuxuu ka sii qaaday inuu wax diido markii la gaaray 6 bilood waqtiga cuntada la sii lahaa idan sidoo kale kan ku kaas u shiid kan ku kaas ku labada boodiyo waa idan dhibaato badan ay iga soo raacday idan laba video oo hore ugu soo hadlaa jirto anigoo ka hadlaaya sida ilmaha carruurta diidan sida loola dhaqma iyo waxaas isna videogaas halkaas oo ku jira magaciisa meeshaas waa video noocan kan waaye marka markii uu soo gaaro qaladkii labaad oo hadana cuntada ku wada qaladkii saddexaad waxay ahayd idan markuu soo gaaray wuxuu soo weynaaday oo 2 sano 3 sano meelaha markuu gaaray waxay noqotay disheek in marka madax adeeg uu bilaabo oo waxyar ka bacdi dhulka isku tuuro oo anigana taas igu noqoto walwal badan aan cunugay ala dhulka ka qabta ana adu ay mataga waxa soo dhan marka adina video kala jirta kala hadlay dhibkaas soo mar alxamdulillah markaan bartina waa alxamdulillah hada aad igu shaqays idan video kala waa oo dhaheeso sida oo ka hadlaya sida carruurta 3 jirka loola dhaqmo insha Allah idan ka faa'iideysto marka qisada marka waxa idin ku sheegayaa inaad wax iga baratiin oo hadda gadaal maskaxda gadaal u celin dadaalkayga dhibka iga bixi jiray iyo hadda alxamdulillah markaan fahmay u fududahay wax weyn kala tahay marka walaalaha waxa idinka rabaa videoyaashta ku xirnaado dad badan oo tarbiyada carruurta ka hadla jira ku xirnaado hooyada inay wax isbarto oo wax raadiso ila dad dan aan mustaqbalkooda soo saareen waa cunugan hadda soo yiriis markuu fahmay in aan marka cuntada iga diido aan walwal iyo biyo isku rida cuntada ka sii go'ay mooyee ku caawin markuu arkay in markuu ooyo oo mataga oo aniga zaid walwala oo zaid markan cabsi badan igu dhacay mutagiisa nadiiftay iska maxay oo arkay ama dhul markuu isku tuuro dug gaaraysa ka naxa oo arkay waa sii badatay masma yaraanan aad u badatay marka insha Allah inuu ku dhaqantiin oo isku dayna insha Allah videoyaashana waa idin soo taxana idin ka soo dhiga qalalaadkii intaanan baranin tarbiyada carruurta oo igu soo dhacay oo hadda alxamdulillah ka soo bartay idinkana soo idin ku dhicin insha Allah video taxana idin ka soo dhiga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh